bismillaahi raxmaani raxiim. walaal ku soo dhawow kanaalka Socdaal Bulsho. barnaamijkani haddii uu ku cajabiyey like, share iyo subscribe-ka waa xaggiina. fikirkaagana waa inoo muhiim ee inoogu reeb commentiga si aad inoo dhiirigelisid. dhacdadani maxay ina tusaysaa? qodobka ah waxaynu kaga hadli doonnaa barnaamijka dhammaadkiisa. wiil 18 jir ah kana dhashay qoys faqiir ah, shaqadiisuna ahayd kaxaynta mooto labaluguleyda si uu ugu daabulo dadka halka ay doonayaan. wiilkani waxa uu waddada ka helay lacag dhan $50,000 Maraykanka ah. kadib waxa uu idaacadaha ka maqlay gabar ku oynaysa lacagta ka luntay. kadib waxa uu wacay idaacaddii una sheegay in uu ku wareejinayo lacagta gabadha lahayd. kadib maxaa dhacay? wiilkii waxaa u yeeray ama u wacay madaxweynaha dalka Liberia, wuxuuna hadiyad ahaan u siiyey $10,000 Maraykanka ah. sidoo kale gabadhii ay ka luntay lacagta uu siiyey waxa ay siisay $1,500 Maraykanka ah. sidaas waxa uu ku helay hadiyad ah $25,000 Maraykanka ah. sidoo kale iskuul caan ka ah dalka Liberia kaas oo ay dhigtaan dadka lacagta leh ayaa sidoo kale waxa ay u soo bandhigeen in ay kafaalo qaadaan waxbarashadiisa, jiifkiisa, cunnadiisa iyo wixii la mid ah. sidoo kale iskuul ku yaala dalka Maraykanka ayaa sidoo kale u soo bandhigay wiilkani yar in ay kafaalo qaadaan waxbarashadiisa, waxbarashadiisa, dharkiisa iyo cunnadiisa intaba. haddaba annaga maxay ina tusaysaa dhacdadani? dhacdadani oo ay bunbuuninayaan dhammaan wargeysyada caalamka ayaa ah mid ay la yaabeen daacadnimada wiilkan yar, kaas oo loo badinayo in uu yahay mid Kirishtaan ah marka laga eego magaciisa iyo dhinacyo badanba. hase ahaatee waxa ay dhacdadani ku tusaysaa sida loo bunbuuninayo in daacadnimada nuucani ah in aysan adduunkan siday uga dhacdo ay adag tahay. haddaba dib u celi xasuustaada 15 sano ka hor, dhacdooyinka nuucani ah ma dhici jireen? su'aasha jawaabteedu ayaa ah haa. hadda maxay u dhici laadahay? maxayse u noqotay mid dhif iyo naadir ah inay dhacdo? sababtoo ah waxaa yaraaday alakacabsigii. waxaa dhagaheennaba laga buuxiyey filimaan iyo musalsalaad kuwaas oo ka buuxa khayaano, dhac. haddaba ma la soo celin karaa daacadnimadii hore? walow oo uu rasuulkeenna naxariisi nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo uu sheegay in aakhir zamaanku nuucani noqon doono. waxa uu yidhi haddii lagu yidhaahdo beritu adduunka waa la laabayaa, maantaba geedtimir beer. sida aynu ognahay, geedtimirku waxa uu ku miro bixiyaa 15 sano. taa macnaheedu waxa ay tahay ha ka quusanin adduunka. haddaba waa in aynu kabaha u gashanaa in aynu ku baraarujinno bulshadeenna wanaagga iyo daacadnimada. haadaa wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. barnaamijyadeena haddii uu ku cajabiyey like, share iyo subscribe-ka hanaga ilaabin si aad inoo dhiirigelisid. fikirkaagana waa inoo muhiim ee noogu reeb commentiga.